السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا رشيد maanta waxaan rabaa inaan walaalayaal nigula wadaago taariikh ku saabsan haliyeyaashii muslimiinta ahaa ama amaana ahaa hogaamiyaashii muslimiinta taariikhda soo martay ayaan rabaa inaan nigula wadaago ninka aan rabo taariikhdiisa ama haliyegani hogaamiyahan waxaa la oran jiray Barko Khan ibn Yuji ibn Genghis Khan buha Barko Khan عائلته kasoo jeeday waa caailadii waqtiga aan rabo inaan ka hadlo ka talinaysay ama ugu weyneyd dawladii ugu weyneyd waqtigaas ee la oran jiray dawladda Mongolia waxa uu awow ahaa odagii la oran jiray Genghis Khan ee soo asaasay dawladda Mongolia ninkii soo asaasay imbratoriyadii odagii asaasay buha imbratoriyadii taariikhda hore u soo marin ee ugu weyneyd nacam dul ahaan intay qabsatay iyo surcaday ku qabsatay nacam sanado yaro dhowse u qabsatay dhul inta la eg waa imbratoriyadii weliga taariikhda soo marin baa la yiraahdaa xiliga waa odagii soo asaasay ayaa u awow ah odagii Genghis Khan ayaa u awow ah intaana aan ka hadlin ninkan aan rabo Barko Khan taariikhdiisa waxaan rabaa inaan si guud neetuso caailadan Genghis Khan iyo inta wiil odagu dhalay inta ka kooban yihiin ayaan rabaa inaan si yaro guud ahaaneed neetuso kadibna inagoo fahamsan si aan hore u soo dhaadhici karno oo wiilkan ama ninkan aan rabno inaan ka hadalno aan taariikhdiisa si fiican aan iskula fahmno Genghis Khan wuxuu ahaa odaygaas aan hore u soo sheegay imbratoriyada inta la eg soo asaasay xiliga odaygaas intuu noolaa waxay ka talinaysay China Korea iyo waxay ka talinaysay Ruushkana oo qaybo badana ilaa Siberia dhulka oo dhan bay ka talinaysay xiligaas waa imbratoriyad aad u weyn baheed ayuu haystaa ayuu ka talinayay iyo dawladii la oran jiray Khwarizm ayuu inta ugu badneyd oo dhan wala qabsaday Khwarizmna uu wala qabsaday inta ugu badneyd oo dawladda Khwarizmiya waa dawlad aad u weyneyd baheed oo dawladii intiina uu soo wala qabsaday xiligaas imbratoriyada oday intuu noolaa uu ka talinayay inta oo dhan baheed markuu dhintay odagii Genghis Khan wuxuu ka tagay afarta wiil waxaa la kala dhihi jiray curadkiisa waxaa la oran jiray ka ugu weyn Juji wuxuu dhalay Barko Khan waa ninka aan rabo inaan taariikhdiisa aan ka muslimay waxaa dhalay curadkii Genghis Khan waxaa afarta wiil oo Genghis Khan haw dhalay ka u horeysay Juji baa la oranayay ka ku xiga waxaa la oranayay Jektai ka ku sii xiga waxaa la oranayay Oktai ka ku sii xiga afaraadna waxaa la oranayay Tulu xiliga afarta wiil oo dhalay waxay haayeen afar wiil oo yagna dhiiga caba oo jiixjixin xiliga caailadani ama odayga soo bilaw Genghis Khan nacam dagaaladu galo marka dib loo eego wuxuu waxay dhulku qabsanay iyo ma rabin isagoo inuu dad haw qabsado dawladaha furto oo dad haw maamulo muu rabin wuxuu meeshay ay qabsadaan dadka way wala xasuuqiyeen meelaha qaar ko taariikhdu waxay qortaa inay magaalooyinka iska daa inay bilaadan dhaqaaqe inay aydiye bisaaskana leeyeen nacam dad saa u fikiraya haayeen oo dhiiga cab oo naxin oo inkaar qabooynaayeen qoladan Mongoolku xiliga afarta wiil oo odagii haw ka tagay curadkiisii 6 bilood buu ka dambeeyay leeydi odagii baalka curadkiisii Juji oo dhalay Barko Khan curadkiisii 6 bilood buu ka dambeeyay sagna uu raacay oo dhintay markuu Genghis Khan dhintay waxaa bilaabantay imbratoriyadii oo maamulayay marka waxaa maamula dawlad oo maamulo inankiisii haw saddexaad Oktai la ilaaho ayaa bilaabantay dawladan odagan imika la wareegay Oktai wuxuu ku amray Batu oo adeer u ahaa oo dhalay Juji haw dhalay ayuu ciidan u dhiibay wuxuu ka yiri ciidanka ka madax noqo weerar ku qaad buu ka yiri dawladahii Yurub oo futuuxaadkii sii furo xiliga Batu uu helinayo nin la oran jiray Subitia la oranayay oo ahaa khabiir istiraatiiji askariya oo nin qaa'ida oo khabiir istiraatiijiyada dagaalkan aad u garanayay ayuu ahaa oo la soo shaqeeyay odagii
wiilkan baato ah Genghis Khan awowgii la soo shaqeeyay oo qaa'id ahaa oo ciidamada inta ugu badan hogaamin jiray oo ka qayb galay 20 sano oo dhan dagaal ku jiray oo 32 dawlado soo furtay 65 dagaal nacam galay oo ku guuleystay ninka baa looga dhigay inuu mustashaar ama la taliyo baato xiliga sidaabay ayuu baato ciidamada u soo qaatay xiliga baato wuxuu la dhashay Barko Khan wuxuu ahaa baato curadkii Juji xiliga odaga Juji curadka Juji wuxuu dhalay 7 ciyaalkiis 7 ay haayeen baato ayaa ugu weynaa Barko Khan kan raba ee muslimiina wuxuu ahaa wiilka afraad buu ahaa xiliga baato ayaa loo dhiibay baato taariikhda aad bay u qortaa markii uu ciidanka ula soo baxay 1234 ciidanka loo soo dhiibay wuxuu weerar ku soo qaaday dawladaha Yurubta ayuu ku soo qaaday oo wala qabsaday Bulgaria dawlado badan oo soo qabsay Ukraine Poland ilaa oo Yurubta intii ugu badneed oo dhan oo soo wala qabsaday wax yar baa uga dhinaa xiliga kadib ma raba inaan taariikhdiisa ninkan aan hore u sii dhaxo gudaha u sii galo dul ahaaneed ayaan baan niga doonaya inaan ni fahamsiiyo xiliga baatahani inuu la dhashay Barko Khan baan u soo qaatay baato xiligaas walaalkiina wuxuu ahaa ninkaas Yurubta oo dhan ninkan soo furtay xiligaas baato soo Yurubta intii ugu badneed wala furtay waxaa dhintay odagii adeerkii ahaa ayaa dhintay taariikhdu markay ahayd 1241 ayuu dhintay odagii adeerkii ahaa la oran jiray Okotai xiliga Okotai markuu dhintay xiligaas baato wuxuu ku soo noqday caasimadiisa oo uga qayb galo doorashooyinka iyo loolanka nin walba wuxuu dareenayaa inuu noqdo madax xiliga waxa loolankii la ishayaba saraaci caa'iladii ama walaalihii dhexdiisa ka dhacaba waxa loo gartay imika caa'iladii ugu yarayd wiilkii ugu yara reerkiisii baa loo gartay ee la oran jiray Tulu oo wiilkii afraad ahaa ayaa imika la wareegay taladii xiliga caa'iladii wiilkii afraad baa la wareegay xiliga Tulu Munolene waxa markaa la wareegay wiilkiisii wiilka mid oo la oran jiray Manko Khan la oranayay waa ninkoo la dhashay Holaku iyo Manko Khan walaalay haayeen oo wiilkii ugu yaraa Genghis Khan baa dhalay Manko Khan markuu xukunkiisa bilaabmay oo imika dawladda hoose ka taliyo oo Mongoolka oo nan ay isagu noqday isagu wuxuu yiri dawladdu aad ba u weyneed maadaama dawladdu aad u weyneed waxaa bilaabmay inuu Holaku ciidan badan u soo dhiibo oo ku soo baalkii ay ku soo baxaan ama ay u soo dhaqaaqaan dawladaha muslimiinta inta hadho oo dhan ay soo wala furtaan xiliga markuu ogaaday sidaas xiligaas dawladii Mongoolku sidaaba ahayd xiliga Barko Khan ninkan aan rabo hadda inaan ka waramo ayaan rabaa inaan imika hoos u sii galo Barko Khan wiilkii afraad ayuu ahaa odagii Juji dhalay baatadii Yurubta qabsadayna la walaal buu ahaa walaalkiisii curad buu ahaa kaasina xiliga Barko Khan ayaa islaamnimada wuxuu soo galay 1200 iyo kontonkii ayuu soo galay isagii oo ku soo galay ama diinta gacantii wuxuu ku muslimay caalimkii weynaa la oran jiray Najmuddin Mukhtar Zahidi la oran jiray dawladaha Khawarizm iyo dhulka ku noolaan jiray ninkaas caalimka weyn ayuu gacantiisu ku muslimay islaamnimadii uu si fiican u qaatay maadaama markuu islaamnimadii si fiican u qaatay wuxuu isagna ku dadaalay sidoo dadka muslimiinta inuu sidoo caawin lahaa oo u garab joogi lahaa oo waxyaalo badan intuu oo markuu islaamnimada qaatay waxyaalo badan ayuu qabtay ayuu waxyaalo badan buu dadkii muslimiinta wuxuu taray uu la garab joogsaday heel iyo hooba inkastay caa'iladii ka duwan yahay ninkan muslim noqday ay caa'iladuna hay tahay caa'ilo majuusi oo diin bahaysan xiligaas wuxuu in badan u bandhigi jiray diinta islaamka wanaagiga uu ku dadaali jiray Barko Khan manaadiqda dhulkay ka talin jireen xiligaas Barko Khan iyo Baato waxay ka tirsanayeen qabiilada Dhahabiya la oran jiray qabiilada Dhahabiya qoladii la oran jiray weesh oo ama la oran jiray Mongol Shimal qoladii la baxday inta oo Ruushka oo dhan iyo Genghis Khan dhulka oo dhan dawladaha oo dhan taanada oo dhan
kuwii ka talinayay haayeen oo qabiilada Dahabiya xilliga dhulkay ka talinayeen inta ugu badan dadkii muslimiintii si fiican bay u soo dhaweeyeen ayay si fiican bay ula dhaqmeen oo islaamnimadii iyo culumadii si fiican buu ninkani u soo dhaweyn jiray waxaan dhacay waqtigaas Hulaku ciidan inuu soo qaatay oo ku soo rabay inuu ku soo duulo dawladda Cabbaasiya oo dawladda Cabbaasiya inuu ku soo duulo ayuu rabay oo ciidan ku soo qaatay waxaan maqlay warkii baa soo gaaray Baako Khan buu ayaa soo gaaray waxaan soo dhaafay walaalayaal intuu Baako Khan markuu muslimay kadibna wuxuu la baayactamooday in khaliiftii muslimiinta waqtiga ee dawladda Cabbaasiya ka talinayay la oran jiray Mu'tasim Billah la oran jiray Abu Abdimajid Mu'tasim Billah ku magac dheeraa ayuu la baayactamooday la baayactamooday xilliga Baako Khan maadaama ailadii uu ka tirsan boqortooyada Mongoolka uu ka tirsan yahay markuu la baayactamooday dawladda Cabbaasiyadii waliba oo Mu'tasim Billah la baayactamooday kadib islaamnimadiisii uu iskaga sii watay Hulaku markuu damcay inuu ciidan u soo qaatay dhinaca dawladaha islaamka walaalkii Baako Khan uu ka dhaadhiciyo ka eediyay inta dawladaha muslimiinta hadhayna waxaan rabaa inaan soo furto xilliga walaalkiina amarkiiba ku yeeray Hulaku sidii uu ciidan u soo gurtay dawladihii islaamka ayuu wala furanayay oo dhinacii dawladaha islaamka u soo dhaqaaqay Baako Khan baa wuxuu maqlay inuu Hulaku oo ku sii socdo dawladda Cabbaasiya oo rabo inuu ku qaado dagaal dawladda Cabbaasiya iyo dawladooyinkii muslimiinta xilligaas buu Baako Khan ayaa socday walaalkii wuxuu tagay Baatu ayuu kala hadlay in la joojiyo dagaalkan lagu qaadayo dawladda Cabbaasiya maxaa yeelay maadaama uu isagu la baayactamooday dawladda Cabbaasiyadii oo isagii oo la noqday heshiis oo isagii oo ailadii ka tirsanay heshiis ay la noqday inuu lagu weeraray wuxuu diiday uu ka hor joogsaday oo walaalkii u sheegay inaana dagaal lagu qaadin maxaa yeelay buu yiri aniga ayaa xiriir fiican la leh oo dawladda Cabbaasiyiinta xilligaas maadaama anaga iyo dawladda Cabbaasiyadaasi waxaan wala galay kala seexan xeerar iyo intifaaqiyad in lagu duulin buu walaalkii uu uga dhaadhiciyay Baatu ayaa markaa wuxuu ahaa maadaama uu ahaa ninkii ailadan ugu weynaa ee Baako Khan ka haystana uu caawiyay maxaa yeelay Baako Khan uu caawiyay markii ay doorashada Baako Khan doorashada qabsanayay dawladda Mongoolka ninka gacanta weyn siiyay waxaa kamid ahaa Baako Khan walaalkii Baatu ayaa siiyay oo maadaama labadani ninka weyn ciyaalka hawdhalay iyo wiilka yari xulfo wadaag bay haayeen oo sidaa bay u qaateen xilka imika oo Baako Khan oo Hulaku la dhashay sidaa buu xilka u haystaa oo waxa caawiyay Baako Khan baa intuu soo socday walaalkii uu sidaan sheegayay sidii aan hadeer toolaba afka ka soo dhawaaqiyay ayuu walaalkii kaga dhaadhiciyay inuuna lagu duulin dawladda Cabbaasiyiinta isaga ittifaaqiyad wala galeen xilligii Baatuna hadalkii walaalkii uu maqlay wuxuu u soo diray warqad Hulaku wuxuu Hulaku la hadlay wuxuu ka yiri dawladda Cabbaasiya ha weerarin buu ka yiri amar buu si inuu weerin maxaa yeelay maadaama ay horeyba labadan ailood xiriir fiican baa ka taagnaa Hulakuna uu mu weerarin dawladda Cabbaasiya intuu noolaa Baatu markuu dhintay uu ogaaday Hulaku inuu Baatu dhintay ayuu Hulaku dagaal ku soo qaaday dawladda Cabbaasiya intii dagaalka dawladda Cabbaasiya lagu soo qaadin inta ugu badan Baako Khan wuxuu ciidamada uu la hadli jiray oo kala hadli jiray dawladdu kala hadli jiray inaana weerar dawladda Cabbaasiya lagu soo qaaday laakiin cid ka dhageysatay ba yaraatay ma jirin oo ciidankan dhani amarka waxay ka qaadanayaan Khan bay ka qaadanayaan xilliga Hulaku iyo walaalkii bay ka qaadanayaan cid amarsa ka qaadanaysa ba yaraatay oo dhageysanaysa u waayay xilliga sidii baa lagu soo weeraray dawladda Cabbaasiya sidii baa lagu soo xasuuqay oo xasuuqii ka geystay iyo dhiiga sidii dadkii loo laayay toddobaadyo bilo ayaa dadkii lagu dhexleynayay ilaa oo dhiigii iyo wabigii la kala saari waayay dadka u galeen oo xasuuqeen
oo macruuf bay ku ahaayeen qoladan Tataarku markay magaalooyinka ay soo galaan xasuuq dadka waxay waxaynayeen waxyaalo nacam laga naxo oo qolada kale ay weerar ku soo qaadayaan markay hay arkaan ama hay maqlaan afriir bay ka sii qaadaan ayay waxaynayeen oo dad waxay haayeen aan nixin oo nacam qof ooyay qof calaalaya iyo waxaasi nacam beerjilaac iyo waxaan iskala tagay haayeen rag waxay rag aad u xun bay haayeen Barku Khan isagoo ogaa markii ay weerarka sahay u soo qaadeen Barku Khan muxuu bilaabay nacam dawladda Cabbaasiyiintii qaniimadii iyo xoolihii wixii laga soo qaatay oo dhan Barku Khan marka wuxuu bilaabay cadawtinimo ka dhan Holaako xiligaas wuxuu waxeeyay Barku Khan intuu ciidad buu diyaariyay wuxuu yiri maadaama ilayn ciidanka inta ugu badan markii waxaa jirtay xeer uu dhigay odagii awood ahaayay Genghis Khan wiilka ugu yarna ciidanka inta u badan la siiyo wiilka ugu weyna qaniimo walba ay soo qabtaan aan dawlad dagaal walba la galo 3 meelood marka loo qaybiyo qayb waxaan qaadataa la yiraahdo wiilka ugu weyn nacamde reerkiisa ayaa qaad Barku Khan soo kaga faa'iideysanaya xeerkaas ayuu Holaako waraaqada u soo diray wuxuu ka yiri xoolahii maadaama qaybtayadii ugu badneed hana la siiyo maadaama xeerkaasina uu jiray oo caa'iladii weyneedana xiligaas Holaako uu diiday hadana rag kale u diray nacam hadal ba Holaako hadaladii waa loogu kuliye dhinac walba laga soo jeesaday xiliga Barku Khan ragii u diray uu Holaako u diray si uga soo qaadaan qaybtiisii uu walay Barku Khan iyo Holaako Barku Khan iyo Holaako markuu ayuubiyada dawladihii Shaam iyo dhulkan oo soo walaha u qabsaday oo dagaal wali hawla gelin dawladii mamaaligta oo Qudus iyo Qaahiro Bibras ay ka talinayeen intuuna dagaal la gelin ayuu ciidankiisa qayb kala mid ah dib ula soo noqday markuu walaalkii dhintay xiligaas muslimiintu markay xaggaas ay dagaalkii Tataarka ay la galeen Ayn Jaaluud ay soo guuleysteen ciidankii Tataarka marka islaamka la dagaalamay Barku Khan wuxuu waxeeyay inuu qaar badan oo ku dadaalay dad badan oo ciidamo badan oo waxaystay oo muslimiinta dhinacooda ka soo dagaalantay wuxuu intifaaqiyad la galay Qaahiro Bibras ayay heshiis noqdeen oo sagnay inuu qayb kala dagaalamo Tataarka qaybta kalena isagoo ka soo dagaalamo oo xiriir fiican bay yeesheen oo sidaa ay ku noqdeen baalkii xulfo wadaag Qaahiro Bibras iyo Barku Khan xiliga Barku Khan kadib markii Holaako iyo isaga waxa kala dagaal ay isku soo qaadeen Barku Khan ayaa dagaal ku soo qaaday Holaako ciidankiisii dagaalkii u horeeyay Holaako iyo Barku Khan ay wala galeen ciidankii Holaako ayaa la baabi'iyay oo laga gacan sareeyay oo aad loo soo baabi'iyay oo dagaalkii u horeysay ee labadoodaasi ilmaadeeradu ay nacamde isku hor imaadeen waxaa guuleystay Barku Khan oo markaa muslim ah oo ka qaba oo ka cadhaysan muslimiinta sidoo Holaako oo mujrim oo manaxa ah soo islaamkii u soo baabi'iyay oo cadhadii u sii haya ayuu soo islaamka u soo gudaya ayuu Holaako dagaalkii u horeeyay la galay ugu cabay xiligaas Holaako ciidanka dib u diyaarsaday dagaal labaad dagaalka soo qaaday Holaako dagaalkii labaad ay hadana hay wala galeen Barku Khan ayaa hadana Barku Khan ciidankiisii baa la jabiyay Barku Khan ayaa ciidan isagu wato oo soo urursaday hadana Holaako mar saddexaad dagaal iskugu hor imaadeen Holaako ciidanka dambe uu soo diray isagu mu hogaaminay waxa hogaaminay wiil hawdalo la oran jiray Baaqi wiilkaas la oran jiray Baato wiilka la oran jiray ayaa oo dhalay Holaako la oran jiray Abqay ayaa ciidanka Abqay Khan oo ciidanka loo soo dhiibay ayaa kala hor imiday Barku Khan xiliga Barku Khan ciidanka saga watay ciidankii Holaako ee marka wiilkiisu uu hogaaminayay uu ka gacan sareeyay uu walaalay ciidankii sidaa uu guuleystay ciidankii Holaako wax yar baa ka soo haray intii ugu badan oo dhan uu soo wala gazaaray uu ka soo wala nacamde uu ka soo guuleystay xiligaas dagaalo kale Holaako yiri soo qaad wixii dagaaladii oo dhan iyo dhulkii oo dhan waa laga soo wala baxay Barku Khan oo muslimiinta gacan haysanayso ayaa dhulkii oo dhan iyo xasuuqii u soo geystay in la egba u geysanay baalkii Holaako iyo ciidankiisii Holaako wuxuu u dhintaa la ilaaha Murdillah
nacam de dowladii Tataarka dhulka ay qabsadeen oo dhan oo imika gacantoodii ka wala baxday oo sababta u badan ay u sababeynayeen Barko Khan oo muslimay oo ciidankiisii oo dhan wala xasuuq xiliga Barko Khan waxyaalaha uu qabtay markii islaamka nacam de islaamnimadiisii ciidankii uu aaray muslimiintii hoolaaka uga aaray oo de hoolaaka sidaabuu soo xasuuqay ma ciidankiisii oo dhulkii intii ugu badnayd oo dhan oo isaga ka talinayay oo de nacam de dhulkii intii ugu badnayd oo dhan isaga de gacanta ku wala haystay xiliga waxyaalaha uu qabtay Barko Khan waxaa kamid ah waqtigiisii wuxuu ka dhisay caasimadii ay iyagu caasimad ay ka dibteen Saara la oran jiray ayuu ka dhisay miskiid aad u weyn oo waqtigaas masaajid ugu waaweyneed ah ayuu ka dhisay culimada aad buu soo dhaweyn jiray nacam diinta si fiican buu de nacam culimada iyo waxbarashada iyo waxyaalaha diinta oo dhan aad buu soo dhaweeyay oo de waxyaalo badan oo islaamka nacam faa'iido u ah oo la taaban karayo waqtigiisa ha u qabtay oo de dhiig iyo wax walbana uu horay ninka wuxuu ahaa nin nacam de islaamnimadu isagii oo qabiilada intaa la eg oo wala ahaa ee diinta haysan isagoo islaamay haddana islaamkii u heeliyay wax badan ayuu ahaa nacam islaamku tel markuu u heeliyay Tahir Bibras wiilkiisii weynaa wuxuu bixiyay magacii Barko Khan ayuu la bixiyay isagoo jecel shakhsiyadaas Barko Khan iyo islaamka wuxuu ka soo taray xiliga wuxuu ahaa haliyay aad u weyn oo de islaamkana wax badan soo qabtay inkasta oo de عائلتي أوجي إيو ده الماديردي إسلام كأده أو حسوقين يا سجنا لكن وحو إسلام كوقا بني أما إسلام كي وحو أوريدي كريه أنت دنب أردن وجأر جدي ده وحاني جتجي ولا ليال إن تاريخ ذا نعم كمد إن ندب أن يقول وده إن شاء الله إن قناة كنا سبسكرايب كإيو شير إنتنا هيك هيلوبينا كومنت نهوصنا وصغر تاريخ عربتين إن كسوق تصانو إيو لايكا نوحاني جتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.